duhur wanaagsan dadkana dhegeysanaya oo dhammaantiinba ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiye maantana waxaa ugu waaweyn aaminaad darrada ka dhaxaysa madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo sababtay in ciidamadii Haramcad laga soo saaro Dhuusamareeb hogaamiyaashana ay la tagaan ciidamo qabsan kara aag dagaal warbixinayaan amuurtaasi idinka hayna madaxweyne lafta gareen oo gaaray Dhuusamareeb iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo goordhow ku wajahan magaaladaasi shacabka magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibtay waxa laga filan karo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka ee Dhuusamareeb ka furmaya ciidamada ammaanka oo baadigoobaya nin xalay dad isku qoys ah ku laayay duleedka Muqdisho xilli qorogii uu watay gacanta lagu dhigay al-shabaab oo burburiyay xarun isgaarsiineed oo ku taalay gudaha dalka Kenya ciidamada Jubbaland iyo al-shabaab oo dagaal muddo kooban socday uu ku dhex maray duleedka magaalada Kismaayo dawladda dalka Jabuuti oo deeq dawo amaanta gaarsiisay cisbitaalka guud ee magaalada Beledweyne Shiinaha oo difaacay hay'adda caafimaadka adduunka kadib eedeymo kaga yimid dawladda Mareykanka kumanaan ruux oo la saadaaliyay in maalin walba ay gaajo u geeriyoon karaan dabayaaqada sanadkan duhur wanaagsan mar kale waa khamiis 9 bisha 7 sanada 2020 warka kulmiye waxa si wada jira u soo jeedinaya anigoo Amaale iyo Axmed Saciid Axmed isla Axmed ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran aan ku bilownay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug waxa isugu tagaya hogaamiyaasha dawlad goboleedyada dalka waxaana halkaasi ay ku yeelanayaan shir aad loo hadal haayo ay uga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka waana kii ugu horeeyay oo ay kaligood isugu yimaadaan tan iyo sanadkii 2018 waxaana markaasi wixii ka dambeeyay ay dawlad goboleedyada qaar ka cabanayeen faragelin ay sheegeen inay ku haysto dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba arrinta xusida mudan oo dad badan ka yaabisay ayaa in madaxda dawlad goboleedyadu ay dalbadaan in ciidamada Haramcad oo ka tirsan booliiska Soomaaliya magaalada Dhuusamareebna ku sugnaa halkaasi laga saaro iyo guud ahaan Galmudug waxaana shalay galab diyaarad looga soo qaaday Dhuusamareeb iyada oo la keenay magaalada Muqdisho ciidamadii halkaasi ku sugnaa ee Haramcad intaasi kuma ekaane walwalka la xiriira ammaankooda haddana madaxweynayaashu waxa uu mid kasta oo tagaya Dhuusamareeb uu la tagay iskana sii hormariyay ciidamo fara badan oo xitaa qaarkood aad moodo sida ciidan u socdo furun dagaal marka gaadiidkooda dagaalka iyo tiradoodaba adeegta su'aal dad badan ay isweydiinayaan ayaa maxaa xilligan keeni kara in iyada oo la tagayo Dhuusamareeb oo kamid ah magaalooyinka ammaankooda uu hagaagsan yahay dalka in waxa soo ciidan ay wataan madaxda iyada oo ay hore u joogeen ciidankii Galmudug kuwii militariga Soomaaliya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Jabuuti oo qayb ka ah howlgalka AMISOM iyo kuwa kaleba xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Jindi oo kamid ah golaha shacabka Soomaaliya ayaa qaba in aaminaad darrada ka dhaxaysa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay arrintaasi sababtay iyada oo la xasuustaba uu yiri weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xarigii Mukhtaar Roobow laba sababa kordhisay cabsida noocan waa mar horta dawladda tiriba waa gabaabsi baba dibkeeda laho dawlad gabaabsi waxa laga yaabaa inaanay cidna ixtiraamin oo wax kasta sameeyso horta cabsi way iska jirtaa labo awlaada ama kala fogaanshaha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada laftirkeeda oo muddo la kala fogaay maxay awal waa lees aaminsanay dib ma jirin wixii marka waxa soo bixisay cuqdada dawladda federaalka qofkii la dagaalsan tahay sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu sameeyay si lamid ah lagu sameyn karay si ka daran ma taqaanaa Mukhtaar Roobow loo soo qabtay iyo loo isticmaalay dawladii Itoobiya loo isticmaalay waxaas cabsidaas faraha badan la keenay laakiin istifaalaha soo baxaya waxa weeyo inuusan is-aaminaad jirin ilaa ay hawshan dhan uga dhacayso sidoo kale xildhibaan Jindi ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay dhaqan aan wanaagsaneyn oo hadda bilowday ayna ahayd in hogaamiyaasha maamulada ay aaminaan Galmudug iyo madaxweynahooda Axmed Qoorqoor oo casuumaadda fidiyay Dhuusamareeb waxa ka jira dawlad goboleed ilaa xad xoog badan oo khilaaf iyo waxba dhexdeeda ka jirin oo niman dhalinyaro oo diyaarsan ay qabteen inkastoo ay xukunka ku cusub yihiin haddana ciidan diyaarsan oo aad u tababarna way haystaan aniga waxa ay la sicmeeday inay madaxweynayaasha dawlad goboleedka aaminaan oo dhaqan hor loo qaab daran oo dib badan aanay keenin oo waswaas leh madaxweyne Qoorqoor leader cusub oo soo baxay weeye ilaa xadna waa diyaarsan yahay dawlad goboleedkiisa in la aamina aniga la fiicneeday
muddooyinkii u dambeeyey waxaa jira in xitaa siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan muqdisho ay kordhiyeen ilaaladooda iyadoo ay xusid mudan tahay in siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlayay munaasabadii 1 luulyo uu ku baaqay in laga warqabo suurtagalna ay tahay in mar kale la weeraro madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyagu laftirkooda ka mid ah siyaasiyiinta kordhiyay ilaaladooda waxaana magaalada Muqdisho marka ay marayaan iyo goobaha ay ku sugan yihiin bal lagu arkayaa ciidamo fara badan oo sugaya ammaankooda mahadsanid Axmed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa gaaray goordhoweyd magaalada Dhuusamareeb iyadoo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland la filayo goordhow inay soo gaaraan magaaladaasi haddaba wariyaha KNN halkaas uga soo warrama Cabdiweli Tooxow ayaan arrimahaas wax ka weydiin magaalada Dhuusamareeb waxaa imika yimid madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan Galmudug xildhibaano iyo wafuud kale oo markaa iyadu ka kala socday maamul goboleedyada xildhibaano aqalka hoose iyo sidoo kale senataro ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxyaabaha halkan uu yimid Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa waxay tahay sidii uga qayb qaadan lahaa shirka ka furmaya Dhuusamareeb maanta waxaana soo dhaweyn heer sare lagu sameeyay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb waxaa imika la soo gudbiyay xarunta madaxtooyada waxaana hadda socda wada hadallo ama kulan gaar ah madaxweynaha Lafta Gareen iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor waxyaabaha ugu badan ee laga hadli doono ayaa waxa ay tahay sidii kulanka ama shirka halkan ka furmaya isla markaasna dhici doona iyo ka qaybgeli doonaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxyaabo badan lagu lafaguro isla markaasna hal meel ay wada jeestaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaa saacadaha fooday lagu soo hayay ee lagu soo aadan la filayaa in madaxweynayaasha Puntland iyo sidoo kale Jubbaland in ay soo gaaraan magaalada Dhuusamareeb oo diyaar garowga ugu dambeeyay ayaa ka soconaya Dhuusamareeb oo waxaa goordhow la filayaa in madaxweynaha ugu horeeya iminka lagu soo wajahan in soo dhaweyntiisa loo dureero oo dadku ay aadaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoorna uu isagu markaasi garoonka tago si madaxweynahaas u soo horeeya imaan doona halkaas ugu soo dhaweeyo waa sidee marka jawiga guud ee Dhuusamareeb maanta magaalada jawigeedu waa degan yahay dad badan oo aan awal joogi jirin baa yimid meel walbana ciidan ayaa xiray dad walbana waa go-an tahay amniga magaaladana waxaa sugaya ciidamada federaalka iyo sidoo kale kuwa Galmudug iyo weliba kuwa Amisom gaar ahaan ciidamada Djibouti jawiga magaaladana waa degan yahay hadalaynta ugu ballaaran waxay tahay shirka ka soconaya Dhuusamareeb ama ka furmi doona heeraha isla markaana u dhaxayn doona madaxda maamul goboleedyada iminka iyagu qaarkood ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb wariyaha idaacadda kulmiye ee magaalada Dhuusamareeb Maxamed Cabdiweli Tooxow ayuu kaasi ahaa dhageystayaal wixii warar ee ku soo kordha tigitaanka madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ee Dhuusamareeb iyo shirkaasi haddii uu furmo wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan ciidamada ammaanka ayaa baadigoobaya nin xalay dad isku qoys ahaa ku dilay duleedka Muqdisho xilli qoriga uu watayna gacanta lagu dhigay Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warka ciidamada ammaanka deegaanka Garas Baali ayaa gacanta ku soo dhigay qorigii uu watay nin xalay dad shacab ah ku xasuuqay deegaankaasi ciidamada oo baaritaan dheeraad ah sameeyay ayaa waxa u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan qorigii uu watay ninka dadka shacabka ku dilay deegaankaasi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka Garas Baali Muxudiin Axmed Yuusuf oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay gacanta ugu soo dhigeen ciidamada ammaanka qorigii uu watay ninka dadka shacabka ku xasuuqay deegaanka isagoona sheegay in ciidamada ammaanka ay baadi goobayaan ninkaasi dambiilaha ah ciidamadu waa ku joogaan si wanaagsan qorigiina waa la qabtay haddana waxaa maaragtay dadkii dhintay oo looga taasiyey oo dhibaato gaartay dhammaan heer gobol ilaa heer degmo marka arrintaasi saasay u dhacday maaragtay waxayna ahayd arrin shil ah oo maaragtay laga naxo markii horeeto waxay ahayd dhacdadaani shil maaragtay qof dilay oo kale ahayd wax ka horreeyana ma lahayn oo dil ku reeyay qodobkaas ka horreeyay ayada ninkii wax dilay baaritaankiisa lagu raad joogo oo aan la ogeyn meel uu ka yimid iyo nooc uu yahay ayaa waxa dhacday isla familki qofka laga dilay in dad badan looga laayo isla meeshii looga laayo markaas la ogaaday marka hore shakiga ahayd markaas la xaqiiqsaday in magaranaysa uu yahay isku hal qof oo hal ujeedo leh oo dadkaas isku familka laynaya markaas la ogaaday marka hore qofku wax dilay lama ogeyn nooc uu ahaa
lama ogeyn nooc waxa qofku wax dilay marka daba si sax loo ogaad waxay ku suurta gashay qof kamid ah shacabka Garas Valley ayaa waa nin alaabadiisa jawaan si warbaahinta booliisku nagu siiyay markuu dhiibtay nin kolley ay yaqaaneen malaha daris dadka asoo daris waxa si leeyahay darisaan uu qabtay kadib markuu alaabtii arkayna wuxuu ku dhaxartay qori taas uu soo ay booliisku oo yiri war aanan maaragtay taas arka imaada ninka ay hadda ciidamada ammaanka baadi goobayaan ayaa xalay wuxuu deegaankaasi ku dilay ilaa 4 qof halka 5 kalena uu dhaawacay kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad isku qoys ah. haddaan markaan eegno wararka Kenya kooxda al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xarun isgaarsiineed oo ku taala gudaha dalka Kenya waxaana lagu soo waramayaa inay burburiyeen qaybo kamid ah shirkadda oo dagaal uu ka dhacay. Maslax Abuukar Xaaji ayaa faafahinaya. wararka ka imaanaya ismaamulka Gaarisa gaar ahaan tuulo lagu magacaabo Korakora ayaa waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi ay weerar ku qaadeen rag hubaysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyadoo weerarkaasi ay ku beegsadeen xarun ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee laga leeyahay dalka Kenya. waxaana dadka deegaanka ay ku warameen in dagaalyahanadan oo tiradooda ay ku qiyaaseen ilaa 20 ay si toos ah u beegsadeen ciidamo ammaan oo halkaasi ku sugnaa kuwa oo ilaalinayay xaruntaasi. dagaal ayaa la sheegay inuu dhex maray labada dhinac lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka jira. laakiin booliiska dalka Kenya toddobaadkii ugu dambeeyay waxa ay hadal hayeen in al-shabaab ay weeraro ka fulin karaan xarumo muhiim ah sida daraadeedna ay si laba jibaari doonaan dadaaladooda ku saabsan sugidda amniga guud ahaanba gobolka waqooyi bari Kenya. dagaalyahanada al-shabaab waxay horay u xoojiyeen weerarada ka dhanka ah xarumaha isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom iyaga oo burburiyay xarumo dhowr ah oo hanti badan ay taalay. hase ahaatee ismaamulka Gaarisa mas'uuliyiintiisa ugu sareysa kamaysan hadlin dhacdadan iyo sida ay u dhacday. dadka deegaanka ayaa waxa ay muujinayaan walaac aad u xoogan oo dhinaca ammaanka ah iyadoona warbaahinta gudaha dalka Kenya qaarkood ay tabinayaan in iminka xaaladdu ay degan tahay ciidamada booliiska goobta ku suganna ay bilaabeen in ay sameeyaan baaritaano ku saabsan ragga weerarka soo qaaday iyo halka ay ka soo galeen deegaanka. inkastoo al-shabaab aysan si rasmi ah u sheegan weerarkan haddana dhowr jeer oo hore tuuladan deegaana ka agdhow weerar ka dhacay waxaa horay u sheegtay al-shabaab oo sheegay inay ka go'an tahay in ciidamada Kenya ay ku beegsadaan gudaha dalka Kenya iyagoo ku eedeeyay Kenya inay ku soo xadgudubtay ciidda Soomaaliya maadaama ciidankeeda ay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. ciidamada Jubbaland iyo al-shabaab ayaa dagaal muddo kooban socday uu ku dhex maray duleedka magaalada Kismaayo. Cabdimajiid Cabaas aadan wariyaha KNN Kismaayo uga soo warama ayaa warkan soo diray. wararka naga soo gaaraya deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dawlad goboleedka Jubbaland ay saaka u ruqansadeen deegaanada kale ah Koban iyo waliba Araare oo dhinaca waqooyi magaalada Kismaayo ka xiga waxaana markaa halka ciidamadu ay ka wadaan howlgallo ammaanka guud lagu xaqiijinayo. ciidamada ayaa waxa ay halkaasi kula kulmeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo kooban socday ilaa iyo haatan ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland ee ku aadan dagaalkaasi saaka ciidamada ku dhaxmaray deegaanada Koban iyo Araare oo dhinaca waqooyi magaalada Kismaayo kaga beegan. ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan deegaanada uu dagaalka ka dhacay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in dagaalka uu saacado kooban uu ka socday inta u dhaxaysa Koban iyo Araare oo laga soo sheegayo khasaaro labada dhinac iyo waliba dadka deegaanka ee halkaasi ka agdhawaa. mana jirto cid ka hadashay dagaalkan oo ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay labada dhinac. hayeeshee warar madax bannaan oo ay helayso idaacadda kulmiya ayaa waxa ay xaqiijinayaan in dagaalkan uu sababay khasaaro markaa soo gaaray dad shacab ah oo ka agdhawaa deegaanada uu dagaalka ka dhacay. saraakiil ka tirsan ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan furimaha dagaalka ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in ay dhinaca dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkaasi khasaaro ay ku gaarsiiyeen
walow aysan jirin ilaa iyo haatan wax war ah oo ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ee ku aadan dagaalka ka dhacay deegaanada Koban iyo Arare. ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa inta badan waxa ay weeraro ku qaadaan xarumaha ay kooxda al-shabaab kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose iyadoona ilaa iyo haatan aysan jirin deegaano si rasmi ah ay ciidamada ula wareegeen.